qofka mu'minka ahi wax kasta oo uu qabanayo ama uu ka fakarayo wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay gacantiisa ku jiro. qofka mu'minka ee dhabta ahi guruur kuma dhaco iyo cujub, isla weyni iyo anaa caqli badan iyo anaa karti badan iyo kaama rumaysana. qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay ilaahay inuu mar kasta u baahan yahay. markaas daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina baray mar kastoo inuu ilaahay sortaagna inaynu akhrino iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. ilaahu adaanu ku caabudayna keligaa baanu kaa kaalmo dalbayna. qofka muslimka ahi mar kasta baahidiisa waa qof ilaahay u bandhiga, waa qof muujiya inuu yahay addoon daciifa, waa qof rumaysan laa xawla walaa quwata ila billaah. cabdillaahi ibnu qays buu nabigu yidhi maku tusiya kanzi min kunuuzi iljanna, khasnadaha jannada ka mida makuu sheegaa? faqultu balaa yaa rasuula allah, haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow. xadiiska saxiixayn ku yaal nabigu wuxuu ku yidhi markaa laa xawla walaa quwata ila billaah weeyaan. ilaahay oo aan gargaarsada mooyaane anigu xawl iyo xeelad iyo quwo iyo itaal midna ma lihi. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabigii uu jeclaa ee mucaad ibnu jabala wuxuu ku yidhi yaa mucaad wallaahi innii la uxibuk, ilaahay baan ku dhaartay mucaada waan ku jeclahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. markaasuu mucaadna wuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo aniguna waa ku jeclay. nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu yidhi kelmadaan ku barayaa ee salaad kasta dabadeed ha ka tegin. allaahuma acinnii calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik. wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal waxaad tidhaahdaa ilaahayow iigu gargaar xuskaaga, inaan ku xuso aanan ku ilaabin, inaan kuu mahadnaqo aanan kaa gaaloobin, iyo si fiican inaan kuu caabudo. ilaahu kaa iigu gargaardheh. nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu inagula dardaarmayaa kow ixris calaa maa yanfacak, wixii ku anfacaya inaad ku dadaasho, waxaan ku anfacayn inaad ka tagto. wakhtigaaga iyo maalintaada iyo xooggaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca. dadka in badanoo ka midi waxaabay dhib ku ah wakhtigoodaba, marka waxay raadinayaan waxay ku dilaan, waxay ku madadaashaan. madadaaladu waa wuxuu rabo qofku inuu wakhtigiisa ku baabi'iyo, xooggiisa iyo xoolihiisa iyo caqligiisa ku baabi'iyo, aan adduunkana manfac ku lahayn aakhirana manfac ku lahayn. qofna isagu wixii dhibayey baabuu wakhtigiisii ku bixiyey. wax xaaraan oo aan diin ahaan ku bannaanayn oo caqiid ahaan bannaanayn oo ayuu ku bixiyey. sheekada ugu badanee soomaalidu ka sheekaysaa waxtar ma leh. siyaasadda iyo qabiilka iyo reeraha iyo waxa laga sheekayo o dhamme waxtar ma leh. kubadaha iyo cayaaraha iyo wax la daawadoo dhamme waxtar ma leh. wararkan habeen iyo maalinba la dhegaysanaya la wado intooda badan waxtar ma leh. wax badan aan waxtar lahayn baa dadku wakhtigiisa ku qaada. nebiguna wuxuu tilmaamayaa min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih. qofka muslimkaa islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah isagoo ka taga waxaan macno u samaynaynin. sidaa awgeed buu nebigu wuxuu ina leeyahy ixris calaa maa yanfacuk, wixii ku anfacaya ku dadaal, isla markaana inaad ilaahay tala saarato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u tala saarato wax walba. wuxuu nebigu raaciyey markaa taa cagsigeeda waxaa dadka u diiday inay wax qabtaan. walaa tacjis buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, ha caajisin. qofka bini aadamka laba wax baa ku dhaca bay idhaahdaan, alkasalu waalcajsu bay idhahdaan. kasalku waa qofku wahsi, cadamuliraada, waa qofku aan doonisba lahayn, inuu wax qabtaba rabin. cajsiguna waa qofkiiyo raba inuu wixii qabto laakiin haddana qaban karila u taagla. cadam ilqudra, shaqo kastoo la qabtaa waxay idhahdaan labadan shay buu camalku ka kooban yahay, inaad waxaad doonaysid iyo inaad awoodid, markaasuu camalku kuu qabsoomaya. inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awooddo. dadka badh iyo wax kastoo ay qabtaan taswiif ku rumaya, insha allah berraan samayn doona. war maanta aad qaban karaysaa, maxaa berri camal kale u dhigo? maya berraan samayn doona, wax kasta berruu u dhigaya. ama maahe brogaraamyo iyo barnaamij buu degayaa,
markaasuu leeyahy insha allahu saasaa yeelaya, sanadka dambe qur-aankaan xifdinaya, sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo, insha allah waxaan rabaa wakhtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo, waxaan rabaa kutubtaa inaan dhigto, waxaan rabaa cibaadadaa inaan sameeyo. laakiin afku ka leeyahay waa barnaamij afka ah, camal ma gaadhayo, isuma bedelayo. maxay wax camala isuma bedelayo. in wax la bilaangareeyaa ma xuma, laakiin waxaad bilaangaraynaysaa waa inuu yahay waxaad awoodoo qaban karaysa. marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay, waa inaad qof riyoonaya noqon. dadka badh baa day dreaming, adoo soo jeeda inaad riyooto maaha. waxaanad samayn karayn haddaad iskaga wadwado waa riyo kale un. dadkii hurdaa riyooda, dadka soo jeedana qaar baa riyooda. waxaad bilaangaraysay waxaad qaban karta waa inuu noqdaa. marka labaadna waa inaad fulisaa. fulintu dadka badh baa fulanima haysaa, armaa dadku kula yaabaa, armaa si xun lagu eegaa, arma shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh, oo wuxuu uu qaban lahaa u diidaya. armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya, waxaan kan buu samaynaya. laakiin nebigu wuxuuna leeyahay ixris calaa maa yanfacak wastacin billaah walaa tacjis. marnaba ha caajisin. bale nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray anas ibnu maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nebiga u shaqaynaya wuxun baan maqlaa isagoo ku celcelinayoo leh allahuma inii acuudu bika min alhami waalxasan waalcajsi waalkasal waalbukhli waaljubn wadalaci addayni waghalabati alrijaal. isagoo ku celcelinayoo leh ilaahu waxaan kaa magan galay warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo murugada. hamigu waa waxa soo socda uu qofku ka warwaro mustaqbalka oo la madoobaada oo dabeetana qofku warwaro. xusniguna waa wixii ka tegay qofka oo tiiraanyo iyo murugo ku reeba. idan waa laba warwar ama laba walbahaar, laakiin waxay ku salaysan yihiin midna waa wixii tegey, midna waa waxa soo socda. nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan galay. wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay alcajsu waalkasal. waa labadan xanuun aynu hadda sheegaynay. qofku inuu cadam ilqudra, inuu wax awoodi waayo, ama in doonistuba ka dhibato. oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay. waa raaxaysanaya buu leeyahay, deetana wuu jiifaya saa baktiga. waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso. qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa, intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay, intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay. sidaa awgeed buu nebigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida. wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubniga. jubnigu waa baqaha, waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya, dabeetana si aad u sugaysa walaadee baraad qaban in aad u leedahay ayay iswada fuulaysaa. hadhowna waxay gaadhaysaa shaqadii waxaad qaban karinba. bukhliguna waa wixii oo anfaca dadka gaadhaynin. wadalaci dayni waghalabati rijaal. waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata. xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimka inuu qof active, qof nashiita, qof firfircoon, qof raba inuu wax qabto, qof camal adduuniya mid aakhira midun ku foogan, qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama wakhtigiisu khasaare ahayn ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya. walidaalika buu nebigu wuxuu tilmaamayaa wakhtiyada qaarkood ayacjizu axadukum buu nebigu yidhi, waar midkiin miyuu kari waayayaa an yaksiba kula yowmin 1000 xasana. maalin kasta inaad 1000 xasano shaqaysato miyaad awoodi kari waayeysa? nin raggii meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi kayfa yaksib axaduna 1000 xasana. oo midkaa suu 1000 xasano u shaqaysan karaa, 1000 ajara u heli karaa. qaala yusabixu 100 tasbiixa fayuktab lahu 1000 xasana. dee 100 goor baad subxaan allah odhanaysaa iyo waxa laguu qoraya. subxaan allah intay kaa qaadanaysa? 100 gooroo subxaan allah waa less than 1 minute.
ka waran hal daqiiqo oo noloshaada ka mid ah haddaad 1000 xasano shaqaysan karto saacaddii misaad shaqaysan karaysa waxa meesha taalla markaa nebigu wuxuu leeyahay qofkaasi subxaana allahi yidhaahda ee tasbiixda la yimaada 1000 xasanana waa loo qoraa aw yuxadu canhu 1000 khatii'a ama 1000 dambaa laga dhigaa cajsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan sawgeed buu nebigu wuxuu leeyahay acjasu nnaasi man cajasa can idducaa acjasu nnaas man cajisa can idducaa dadka waxaa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo wa abkhalu nnaasi man bakhila bisalaam dadka waxaa kaloo u bakhaylsan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa duco inaad dadka u ducaysaad kala bakhaylaysa ayuha alaxiba marar badan buu sababtu cajsiga keenta ay tahay aqoon darrada waayo subxaana allahi haddaanad ajarkeeda garanayni waa aqoon darra ku haysata aqoon darradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo hadaad aragto qof aydhal ah jahlnima haysata walow uu xoog badan yahay walow uu dakaagiisu intelligencekiisu uu sarreeyo walow uu caqli badan yahay mar haddaanad muntij ahayna wax soo saaraynin nolosha aynu joogno bini aadamku wakhti isku miduu haystaa inta badan dadku 60 jir 50 jir 70 jir meelaha waa soo wada gaadha laakiin midhaha iyo raadkay dunida kaga tagaan iyagoo isku wakhti noola waa kala nooc waxay yidhaahdaan nolosha waxaa qiimaha ku sameeya ma aha inaad caqli badantay ee waxa weeyaan bay yidhaahdaan inaad hardware kar tahay nolosha taasaa raad ku leh qof xoog wax u qabtay inaad tahay garadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidu waxba kuu kordhin mayso si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa amaba si aan aayadda qur-aana tilmaamo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday arday u noqday tuke qiyaas inaad tuke arday u noqotid tabardarradu halkay gaadhay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy fabacatha allaahu ghuraaban yabxathu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari saw'ata akhii qaala yaa weylataa acajaztu an akuuna midla hada alguraab fawaariya saw'ata akhii faasbaxa min annaadimiin in aadamkii walaalkii dilay markuu dembiga geystay walow uu xoog weynaayo xooggaa walaalkii ku dilay uu qabay kadib aqoon darrada haysatay waxay noqotay si uu u galo meydkii walaalkii buu garan waayey ilaahay baa wuxuu u soo diray tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray tuka kaloo dhintay godu qoday oo aasay wuxuu baray markaa in wax la xabaalo wuu halaan halay ama wuu calaacalayo wuxuu leeyahy yaa weylataa acajaztu an akuuna midla hada alguraab halaagaygiiyow kaalaye ma waxaan ka liitaa ma waxaan ka waxtar xumaaday inaan tukahaasoo kala noqdo idan jahligu tukuu macallinkaaga dhigi dad badanoo maanta soomaaliyeed oo iska fadhfadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaanba way garan waayeen jahligaa fadhiisiiyey beer si loo qoto ma garanayo wax kale si loo sameeyo ma garanayo aqoon si loo barto ma garanayo jahli baa fadhiisiiyey jahligu markaa dadka wuxuu dulleeyaa idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwa almu'min alqawiy khayru axabu ila allahi min almu'min adaciif wa fi kullin khayr quwada la sheegaya aqoontaa ka mid ah saawgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inagala dardaarmayaa istacin billaahi walaa tacjiz ilaahay kaalmayso oo isticaanadaada ilaahay kaalmayso hana caajisin
qur-aankana ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa in badan baa ilaahay wuxuu qur-aanka kaga warramaya reer banu israa'iil oo laleeyahay khuduu maa aataynaakum biquwa, war waxaa diinkaanu idiin soo dejinnay war si ijtihaad iyo firfircooni iyo xoog uu ku jiro. khuduu maa aataynaakum biquwa baa ilaahay leeyahy. nabi muuse maxaa ilaahay leeyahy wakatabnaa lahu fi lalwaaxi min kuli shayin mawcidatan watafsiilan likuli shay fakhudhaa biquwa waamur qawmaka yaakhuduu biaxsaniha. ilaahay nabi muuse ku leeyay fakhudhaa biquwa, si dadaal iyo tamari ku jirto ku qaado. khuduu maa aataynaakum biquwatin wasmacuu qaaluu samicnaa wacasaynaa. markii ilaahay uu nebi yaxye la hadlayay waxaa la yidhi yaa yaxyaa khudi alkitaaba biquwa, war nebi yaxyow kitaabka si xooggan u qaada baa la yidhi, si jiddiya, si ijtihaadu ku jiro, si dadaal iyo firfircooniyo ku jirto ilaahay kitaabkiisa u qaada baa la yidhi. waxaa qur-aanka ilaahay uu ku sifaynayaa dadka wahsiga iyo cajsigu hayaa inay sifada munaafiqiinta tahay. wahsigu ilahay wuxuu leeyahy ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala. munaafiqiinta ilaahay wuxuu ku tilmaamay salaadda hadday u kacaan waa kuwa kaca iyagoo kusaala ah, iyagoo wahsi iyo caajis u hayo. walaa yaatuuna asalaata ilaa wahum kusaala, salaadda lama yimaadaan baa ilaahay yidhi iyagoo xaaladda ku sugan mooyaane. ayuha alaxiba, markaad wahsato acmaashu way isfuulfuushaa. wixii maanta kugu habboonaa inaad qabato markaad qaban weydo wayse sii kortaa. sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi athaaqaltum ila alard. war dadka mu'miniinta ahu maxaa idinku dhacay? oo haddii laydin idhahda ilaahay tiisa u soo baxa, jihaadka u soo kaca, athaaqaltum ila alardi baa layidhi, maxaa dhulka idinku cusleeyey ayaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. maxaad dhulka isugu nabaysaane u kici kari weydeen? aradiitum bilxayaati addunya min alaakhira, ma adduunka aakhira ka jeclaateen baa ilaahay leeyahy. famaa mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ilaa qaliil ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima wayastabdil qowman gayrakum walaa taduruuhu shay'a. ayuha alaxiba, kuwa munaafiqiinta ee jihaadka ka wahsada ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay sifaadka munaafiqiinta ka mid tahay taasi. yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum fainfiruu hubaatin aw infiruu jamiica waina minkum laman layubati'anna waxaa idinka mida baa ilaahay leeyahy mid dadkaba cagsi gelinaya o fadhiisinaya oo dib u reebaya. waxay yidhahdeen daraasaadka cilmiga ee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqaysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga Hong Kong ay ku sameeyeen oo dadka Hong Kong baadheen. markaase waxay yidhaahdeen lazinesska iyo waxqabad la-aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay. sigaarka waxaa la wada yaqaanaa inuu sun yahay, boys iyo dadka laaya. cajsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen. qolana 6,800 meelahaasay noqoto, qolana 5,700. maanta waa kuwan yidhaahdaa xanuunada ugu tirada badan lee bini aadamka ku dhaca waxa keena bay yidhahdaan maxay? exercise laan. exerciseka la sheegaya inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato uun, laakiin haddaad iska yuururto una fadhidid, qof fadhiya habeen iyo maalinba, caafimaadkiisaaba khatar ku jira. ka kaalay nolosha inaad waxtar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato, ee waxa khatarta gelaya waxa weeyaan maxay? adiga caafimaadkaagii baa khatar gelaya. walidaalika bay atibada maanta waxay tilmaamayaan qofku inuu nashaad isgeliyo. ma macaan baad qabtaa, ma sokor baad qabtaa, ma kan baad qabtaa, maalintii intaa soco, intaa qabo, yani waa wax qabo. fadhigu markaa caqligana uma fiicna, iska fadhiga aan waxba lagu qabanaynin, jidhkana uma fiicna, aakhirana uma fiicna, adduunna uma fiicna. lazinesku markaa nolosha meel laba wax kagama leh. ee waxa meesha taalla qofka mu'minkii inuu muntij noqdo, qof wax soo saar leh inuu noqdo. weligaa ha moodina wakhtigu ku dhaafay. dadka badh baa isle faataka alqataarkay sheegi jireen, yacni
waqtigiiba tegay intaan meesha fadhiyay inta kuu hadhay cimriga baa wax soo saar yeelan karta laga yaabo dadka badhaysa maanta konton jir baad teeba waxbaad baran karaysaa dad baa konton jirro inta ku bilaabeen culammadii waaweynay dunida noqday ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga jaanisku siiyey adigoo waxa ku xilka ku saaran wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu weli mutasac baa jira nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inugu dhiirinaya wuxuu tilmaamayaa in qaamat isaaca wa fii yadi axadikum fasiila fain istataaca an laa taquum xataa yagrisaha falyagrisaha nabigu wuxuu leeyahay hadduu qiyaamuhu xaggaa ka soo bilaabo soo kaco oo aad gacanta ku hayso fasiilada waxaa la yidhaha geetimireedka yara la abqaalayo geetimireed yar aad gacanta ku hayso haddaad ka gaadhsiin karta inaad abqaasho buu nabigu leeyahay abqaal beer haddaad ka gaadhsiin karta beer oo innaga iyadaan qiyaamaba inaan arkaynin baynu fadhinaa unu leenahay waan gaboobay soomaalidu dee 40 jirkay ku gabowdaa soo maha soomaaligii markuu bini aadamkuba u xoog badnaa markuu gaadho ayuu yidhaahdaa waan gaboobo wax waliba way ga dhammaadeen bini aadamku caqliguu ka gaboobaa haddaad maanka ka gabowdo ayuunbaad gabowda inta kale waxbaad qaban kartaa sawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qabla almowti in furas jiro inta geerida ka horraysa inaad fursad haysato fursad wax lagu qabto inaad haysato waxaad yaraysanaysaa wax weyn noqda waxaad yaraysanaysaa maxaan uga jeedaa sadar quraana inaad qaybtaa waa wax kula yar soo maaha siladay oo haddaan maalin kasta sadar qaybo goormaan quraanka dhammayn haddaan sadar qaybo goormaan quraanka dhammayn waxay dhahaan 12 sannadood baad ku dhammaynaysaa haddaad maalin kasta sadar qaybto hadda waa sadar hal sadar waxay dhahdaan waxqabadku taraakumka biiritaanku qiimaha ku sameeya markanaad qabanayso waxa yaraantiisa ayay kuu muuqanin haddaad maalintii hal safxa qorto hal page haddaad maalintii qorto sanadkii imisaad soo saaraysaa ugu yaraan 2 buug baad qori kartaa sanad kasta waayo sanadku waa 365 maalmood haddaad maalin kasta page qorto macnaheed waxa weeyaan ugu yaraan buug 300 page ka badan ayaad qori kartaa laakiin haddaad tidhaahdo ma xaashi aan qorayba buug noqon doontaa maxaan xaashi ka qori doona aqoontu iyo waxqabadku iyo waxtarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa wax kasta oo biiraa aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa taasa waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin in wadaada wuxuu tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada inta uu gaariga soo socday uu gurigiisa ku sii socda buu dhegaysan jiray uuna cajiladii jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhegaystaa inta maxay uu gaariga sii wado hadda intaad gaariga gurigaaga jaamacadda tagtay gurigaaga ku sii socota intaad dhegaysato ayaad ku qalin jabin kartaa laakiin waa hadday taraakumto de waa haddaad maalin walba sida tan u dhegaysanayso marka waxaan uga dan leenahay camalku iyo waxqabadku iyo waxbarashadu iyo wardigu iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaan in la joogteeyaabay wax ku noqdaan camalka inaad joogtayso ayuu wax ku noqonaya ilaahina wuxuu ina leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin war dadka mu'miniintow wahniyuu idinku dhicin haniyad jabina hana murugoonina idinkaa koreeyaba ilaahay tilmaamaya haddaa kuwa mu'miniina tihiin haddaad dariiqa iimaanka raacdaan waa koreynaysaa xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin intaa qabo sawgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay waka'ayyin min nabiyyin qaatala macahu ribbiyuuna kathiir famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili illah wamaa dacufuu wama stakaanuu wallahu yuxibu asaabiriin badanaa inta nebi qaatala macahu ribbiyuun maciisa ay la dagaal galeen kuwo rabbi loo nisbeeyey
dad ilaahay isu dhiibay oo may daciifin wixii dhib soo gaadhay, may isdhiibin, may isdhuldhigin, ee waxay noqdeen dad walow markaa ha lagaba xoog batee wada camalkii ilaa iyo intay natiijada ka gaadhayaan. ayuha alaxiba, marka xadiiska kan wuxuu nebigu ku gebagabaynayaa calayhi salaatu wasalaam weer tilmaamaysa ereyga low ah wixii kaa tegey tiiraanyadooda inaad isku mashquulin. oo wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam, ha odhanin bal ma haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa waxaasaa soo bixin, asaasaa noqon lahay. fa ina low taftaxu, waxay furtaa low, waa camal shaydaan, albaabka shaydaankay furtaa. oo maxaa jira alqadaa walqadar mar hadduu ku dhaafo lama calaacalo. qaar baa waxay yidhaahdeen low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu, haddayna la joogi lahayn, waa kuwo munaafiqiina waxay leeyihin muslimiintaa soo dhimanaysa, hadday iska joogi lahayn oo nala fadhihi lahaayeen maa maatuu wamaa qutiluu, manay dhinteen labana dileen. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim. waar xataa guryihiina haddaa ku jirtaan, intii wakhtigu ka dhammaatay geeridu way u iman lahayd baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. saa awgeed low waxay culimmada qaar yidhaahdaan mawducu tacliimkuunbay ku fiicantay, ayaa la isticmaali karaa. oo maalan jaamacad baad ka soo qalijabisay, wixii aad barataa marketka aan shaqo ku lahayn, qof yar baa ku yidhi ila tale, markaasa waxaad ku tidhi maanta haddaan jaaniska haysan lahaa, low kaan haddaan jaaniska haysan lahaa kan maan galayna kaasaan geli lahaa. waa litacliim. qofkan baad rabtaa inaad tidhahda war natiijada anaa waddadan soo marayo ma fiicne, waxaad isku daydaa maxay kan kale ina wato. saas daraaddeed buu nebigu lahaa low istaqbaltu min amri ma stadbartu, markii ay ugu tilmaamayey dadkii soo xidhay cimrada ama xajka soo xidhay ee xalaaloobi kari waay, ee hadyiga waday. haddaad hadyidu waddo ma xalaaloobaysid. haddaan arrinkayga hadda wixii soo dhaafay hadduu hadda ii bilaabmi lahaa buu nebigu leeyahy, hadyigana maan soo kaxeeyeen, dadkana waa la xalaaloobi lahaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. culammadu waxay yidhahdaan markaa min baabi tacliim iyo meelaha hadday tahay waa bannaan tahay, laakiin baabu calaacalka hadday tahay bay leeyihin ma bannaana. oo waa maxay? qul maa shaaa allaahu kaan, waa inaad rumaysataa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ina allaha kaana caliiman xakiima. wixii tegey waxba kama bedeli kartid, maadaama aanad waxba ka bedeli karaynin. ilaahay wuxuu tilmaamaya wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah, ilaahay wuxuu doono mooyaane wax kaloo idinku dooni kartaan ma jirto. ina allaha kaana caliiman xakiima. bale waxaad ka calaacalaysa waxaaba laga yaabay khayrku saa ku jiray. wacasa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum. waxaan ku soo koobaya markaa xadiidka dhammaantiiba. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay mu'minka waxtarka ah ee nafciga leh ee xooggiisa iyo caqligiisa iyo wixiisu qabanayo nashiidka ee ku firfircoon qawiga ah ayaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah. mu'minnimaduna dhammaanteed waa khayr marka horeba. dardaarankaana weyna siiyey wixii ina anfacayana inaynu samayno, ilaahayna inaynu gargaarsanno, cajsiga iyo kasliga iyo waxaana inaynu iska dayno. wain asaabaka shayun falaa taqul, haddii wax sidii aad rabteen natiija u dhici weydana ha odhanin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa. laakiin waxaad tidhaahdaa qul qadara allahu wamaa shaaa facal faina low taftaxu camala ashaytaan. sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam.